halkani waa degmada Baargaal degmada Baargaal runtii waxay leedahay khayraad fara badan oo u baahan inaynu ka faa'iideysano kalluumaysi haday tahay beeraha haday tahay xoolaha haday tahay xijiga haday tahay iyo xabkaha muraha malmalka xankookibka maxaan ku yiraahdaa qaroonta luufoodka beeyada waxa soo dhami waa khayraad aynu haysano oo degmada Baargaal gaar ahaan aynu hayso waxaanu kalluunka noocyadiisa kala duwan ee faraha badan xijiga maydiga oo runtii aan ilaahay idinkii barnaamijyo waaweyn ka sameyn doono oo soo bandhigi doono ayay leedahay xoolaha looda ayaa ugu yar ido riyo geel maxaan ku yiraahdaa oo dhan ayaa jooga runtii waa dhul beeraha ku haboon biyana leh waxay u baahan tahay in la maalgashado waxaanu ganacsatada Soomaaliyeed iyo reer Puntlandba ugu baaqaynaa inay Baargaal soo degaan maxaan ku yiraahdaa tuulooyinkooda soo degaan ganacsiga badda ay furtaan oo yimaadaan waa la fududeynaynaa anagu wax badan maydiga ganacsatada maydiga oo maxaan ku yiraahdaa maydiga iibsata inay yimaadaan halkan waxaanu ka helaynaa baqaaro aanu ku safayno oo aanu isagoo musafiya aanu qaadno oo ka kharash yar meelaha hadda lagu safayo waxaan ka helaynaa maxaan ku yiraahdaa warshadaha yaryarka ah ee kalluumaysiga ayaa laga samaysan karaa ayagoo aan maxaan ku yiraahdaa wax cashuura iyo wax dheef kora iyo wax kharasha iyo wax maxaan ku yiraahdaa baqacadihii baanu bixinaynaa ganacsatadu rugihii ay degi lahaayeen ayaanu ugu deeqaynaa dawlad hoose ahaana gacan baanu fidinaynaa shacabka reer Baargaalna waxay diyaar u yihiin in wax lala qabsado waa dad runtii shaqaysta aan dadka hantidiisa ku habsan aamin ah u baahan maxaan ku yiraahdaa shacab walaalahooda oo wax la qabsada waxaan rabnaa marka deegaankani ilaahay idankiisa qarkaas aad u jeedaan iminka oo inaka dambeeyay waa dhulka xijiga waa dhulka uduga Puntland la sheegayay waa buuraha weey magacaasi waa ina wada deeqaa laakiin dhulka runta ah ee loo bixiyay waa silsiladaas Baargaal iyo gobolada kale degmooyinka kaleeto gaar ahaan Gardafuu bari sanaag ku hareereysan weey marka waxaan rabnaa inaan dhulkeena uduga ka faa'iideysano oo khayrka uu leeyahay aynu cirka aynaan eegin hoos eegno oo aynu dhulkeena ka faa'iideysano khayraadka yaal ganacsatadu meelaha ay wax ka raadinayaan hayska daayeen oo deegaanadeena hoos haw fiiriyeen shaqada kuweena baagamuudada baa waxeleeya maamulka waxeleeya shacabka waxeleeya ganacsato kale taa ku soo dhiiranayso helaysa wax saadarteed waxaanu gacmo furan ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo khayr ama ganacsi ama maxaan ku yiraahdaa runtii deegaanka soo degaysa waa la soo dhaweynaynaa 100% waa saaciideynayna aad baan u salaamayaa saaxiibada nala shaqeeya oo runtii markastaba na dhiiri geliya wax qabadka nagu dhiiri geliya aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh